weyn oo maalmihii taariikhiga ahaa madashan in badan laga soo hadlay wada dheer ay soo martay waxyaabo badan ay ka soo gudubtay la iskuma tanaasulo la isma daba kaco maamul lama yeelan karo waxyaabo badan 6 xisbiye qaran oo jira waaye mid walba maamulkiisa mas'uuliyadiisa xusuulaha laakiin waxa ay leeyihiin waxyaabo ka wada dhaxeeya oo ay u wada arkeen inay ka siman yihiin waxaas ka wada dhaxeeya inay ka wada shaqeeyaan dalkaanna oo hore u socdo waxaan rabno waaye waxaasi waa mas'uuliyadda loo doortay oo aan aad iyo aad una hambalyeynayno una muxuu ahay garab taaganahay ayaa muxuu ahay wixii faahfaahinana sii doonto iyo warka laakiin aniga waa la igu sharfay waxaan rabaa caqabadaas la iskuma imaan karo iyo dadka Soomaalida kama heshii karaan talada iyo waa ka soo gudubnay maanta cadaynay u tahay inaan isku imaan karno wax naga dhaxeena aan yeelan karno intay doonaan hal ekaadeen waxaasi waxa asal u ah marka mabaadi guud oo iyo muxuu ahaa ajendayaal iyo qiyam wax laga hadli doono laakiin waxa muhiimka oo aniga aan si gaar ah maanta rabo inaan xusuuxay tahay hawl aan cusbeen horena loo sheegi jiray haddana madashan ay ku jirto xisbiyada gaargaarka oo xataa aanan naga tirsanayn oo madasha ka mid ahayn xataa ay qabaan aan hubo inay qabaan dadka Soomaalida ay jecel yihiin oo ah dalkan in dictatoriyad ay ku soo noqoto hal nin uu ka taliyo dadka kalena maxaan ku iraahdaa firiista istaaga la yiraahdo waa ka soo dhamaatay taariikhdaas taariikh dib loogu laabanaya ma aha dalkan waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeedna ay rabaan annaga waqtigii mas'uuliyadda ummadda ay noo dhiibataan aan cadaynay dalkan waxaan rabnaa dal dimuqraadi ah inuu noqdo dimuqraadiyaddana maxaa daliil u ah ku dhaqanka xeerka sharci in lagu dhaqmo wax kasta oo dawladnimadu ay sameynayso waa inay noqdaan wax xeerku qotomo dastuurku ugu weyn yahay shuruucda kale dalka leena ugu weyn tahay wixii markaas shuruucdii dastuurka laga waayana inta mas'uuliyiinta ama xilaha hayso ama banaanka joogtay dadka codka u ah oo dadka muxuu ahay u ah in la isugu yeero oo laga tashado waxaani ilaan baadiyaheena iyo dhaqankeena waa qabno Soomaaliya waa xeer waxaani xeerka waa sidaan qaba hal yeelo xeer uma qabno curato waaye sayelna hadda inta leeyahay in laga tashado wixii xeerka laga waayana waxaan leenahay laga tashado wixii xeerka ku yaalo ama dastuurka ku yaalo ama maxaan ku iraahdaa xeerarka dalku leeyahay ku yaalo sida iyana loogu dhaqmo waa meelaha aan marar badan cabashado ka muujinay dadka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen dawladda la isku cafimaayo marka qofna raali looga noqon maayo inuu xeerka ku tunto ama darajada ugu sarreysa dalka ha joogo ama darajada ugu hooseysa ha jooga ama shacab ha ahaado dariiq taagan ha ahaado qofna xeerka loogama tanasulayo loogumana cudur daarayo inuu dhinac maro asoo arkayo oo yaqaano oo maxaan ku iraahdaa hadii uu ka maqan yahayna raadi karo oo dad warsan karo marka la isku raali gelinayo taas waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeedna in ay taas waa ku faraxsanahay dadku inay fahmeen xuquuqdooda ay leeyihiin karaamada ay leeyihiin oo ay bilaabeen inay hadlaan ayagoon qoryo sidanin ayagoon madaafiic ridaynin ayagoon maxaan ku iraahdaa duminaynin dalka waxaan leenahay sida dawladuna ka jawaabto bas mas'uuliyadda saaran waxay tahay dadku markay hadlaan inay inta dhageysato ay ka jawaabto wixii sax wixii aan sax ahayn ay u sheegto dadkiisa waxaan sidaan ama xeerka ma qabo ama ma awoodno waa sax la maanta laakiin ma awoodno duruufeen waa 1 iyo 2 iyo 3 ma awoodno dadka in lala hadlo mar walba loo yimaado muxuu ahay oo laga jawaabo markay dadku hadlaan waa arin ayadana muxuu aad iyo aad muqaddisuda xorriyaadka dadka waa muhiim dastuurka tilmaamayo ummad 100% muslim aan nahay muxuu ahay diinta islaamka ee xaniifka tilmaamayso xorriyada qofka marna inaan lagu tacadiyin lagu xadgudbin markaas ayaa qofkuna xeer ku qabanaya oo dambiyada lagu oogi karo laakiin qofku haduu noqdo qof aan xorriyad lahayn xuquuq lahayn isagu un waajibaad laga rabo hadda taas waa soo shaqeyn weyda haddana ma shaqeynaysan leeyahay sidoo kale dadku adeegyo dawladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karta hadba inay dadku u adeegto midda hadda ugu dambayso laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda beledweyne ka taagan dawladdu waa ka gaabisay aniga ma gara karo sida oo madaxdeena iyo dawladdeena iyo hay'adaheena dawliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka Soomaaliyeed ay ugu sharaxi karaan dawladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taalada inay waa xunta aan leeyahay laakiin malaayiin dollar oo taalooyinka lagu dhisana dawladda waa awoodaa way soo heli kartaa
dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane dawladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhehaysaa yacni in laysqabadsiiyaa loo baahan yahay waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dawladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaana ka maqan marka waxaan leenahay dawladdeenni inay ku baraarugsanaato ee waxay dawlo waxay macno ku leedahay dawlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kari karin maxay uu dawladdu u yeeli weydo dawladdeena waa dawlad daciifa waa dawlad muxuu curdana hadda dhalanayso waa dawlad tabar yar dhaqaaluhu ku yaryahay wax badan imkaan cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaas oo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsannahay weli ay karaanaa jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa wixii ay karaan ay awoodi karaan inay kasaanaan rabnaa kasmadii waa waxaan tuubsannahay dawladdu inay ka maqan tahay kartiyaradii ku eedaynayno laakiin kasmadii iyo dareenkii iyo shucuurkii soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waayo waxa aan ku tuumsannahay annaga inay maqan yihiin dawladdu waxa ay karta ha karto waxa ay kasinna ha kasta waxa ay inay kasta ay tahay ha kastaan leenahay marka maanta waa maalintaas weyn wixii faahfaahinta iyo structure-ka mas'uuliyiinta madaxda loo doortaan u daynaynaa madaxda iyo structure-ka la magacaabayaan lixdan xisbi meesha taagan committee-dan ku nahay waa ku shaqaynaynaa sidaanu madax u yeelanay madaxdeena ku ixtiraamayna inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadkiisa cadow loo qabanaya maslaxadda ummadan iyo dawladnimada dalkaanaan heshiis ku nahay xumaan heshiis kuma ihin dulmi heshiis kuma ihin qaanuunka in la dhinac maro heshiis kuma ihin in la dhowro ciddii dhinac maraysana la qabto shaatiga lasoo qabto layidhaaho waa ka leexatay qaanuunkii layidhaahan heshiis ku nahay wanaag iyo horumar iyo niyad samaanan heshiis ku nahay colaad iyo xumaan iyo waxdumin iyo waxqarribaad heshiis kuma ihin qofkii u yaqaano waa sharciga waa la khalday hal la toosiyo in la yiraahdo inay xumaan tahay qofkii u yaqaano allah soo hanuuniyaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh